markabkii maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul wuxuuna ku sii socdaa insha Allah Muqdisho hadduu Ilaahay raalli ka noqdo markabkaasoo sidaan hore u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic oo ah sahminta ugu dambaysa ee ka horeysa inta aan la samaynin qoditaanka shidaalka waxay qaadanaysaa markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho 20 cisho kadibna wuxuu tegi doonaa Xamar insha Allah halkaasoo aan xaflad kale ugu qaban doono marka uu dhaqaaqo wuxuu tegi doonaa Galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dawladda Turkida waxayna bilaabi doonaan sahmintii 3D seismic ahayd sahmintaasoo socon doonto muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho 9 cisho kadibna waxaa bilaabanaya in daytadii la soo aruuriyey la process gareeyo oo la turjumo ayadana qaadanayso 3 bilood oo kale waxaan ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilowga sanadka soo socda 2025 qoditaankaas uu bilaaban doono waxaan isleeyahay waa rajo fiican waa yani wax aad runtii loogu farxo maanta waxaa ayadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiya madaxweynaha Erdogan uu nagala soo qayb qaatay sagootinta xafladda sagootinta markabka waxaan isleeyahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiya oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn insha Allah qoditaanka markuu bilaabdona waxa xiga waa in yani Soomaaliya ay noqoto sidaan rajaynayno wadan batrool soo saaro wadan shidaal leh shidaalkaasna soo saara kana faa'iideysto dalkana uga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo hadduu Ilaahay raalli ka noqdo